bartana nukulenahay youtube-ka ee joof iyo johrad soo dhawaada haddii aad aragtay ama uu kugu cusub yahay channelkan joof iyo johrad subscribe-ta iyo like-ta raaci kuna qabo gacanta midig gacanta bidix hadday gacmuhu ku xanuunayaan sanka ku qabo waa suldaankii guud u gargaar walaalkaaga dhibanaha caawa waxaa la falanqaynayaa sawir hore idinku sheegay dabka saaran ninkii la odhan jiray qamar suugaani haddaba qamar suugaani yaa tahay qamar suugaani ma abwaan baa ma fanaan baa ma siyaasi baa ma madaxweyne mise waa waxyaabo kale haddaba qamar suugaani waa fanaan waa heesa khatar cadeega buu qaadaa laakiinse bilnasiib waxaa ku dhacay qadar khatar cadeema qamar suugaani sidaad miidiyaha ku arkaysaan ama annagaba barkiin naga arkay waxa laga hadlayaa waxa weeye gabadh isaga isku fiicnaayeen ceesho milix isku haayeen oo iyadu u sheeganaysa in isaga uur u qaaday isaguna uu leeyahay anigu yaa kugu yiri uu dhala maana dhala haddaba waxaan falanqayn doonaa midmid dul istaagi doonaa marhum baam sawaariyo waata dadku isweydiinayaan waxaan ma wax la sameeyayba ma fanaanka la ceebeynaya macaan codkiisii ahaynba ma waxaan maxay tahay baa la isweydiinaya waxaan waxay tahay baa la dabiidin sheegayna inay run tahay oo been ahayn baa la sheegayna maxaa sidii ku cadaynayna waxaan idin ku cadaynaynaa codka gabadha laga duubay iyo codka ninka ku hadlaya labaduba waa reality codka oranaya anigu ma dhalo waan ismaray waa isaga gabadha oranaysa habeenkii waan qaldamay oo waxba si iga noqdayna waa run haddaba isagu hore ma single buu oo beerku u jiifay oo barbarada daalay mise xaas buu lahaa seenugu muuqaala oo taqaanaan ama aragteen annagu maanaan joogin meel meherkoodu ka dhacayay laakiinse waxaanu caddaynaynaa miidiyuhu waa kursi lagu wada fadhiyo in uu qabay gabar la yiraahdo ugbaad aragsan oo heesta iyaduna oo fanaanada maadaama uu ahaa nin marwale xaas leh maxaa ku kalifay waxyaabaa la isweydiinaya sama dhici kartaa nin marwale oo xaas leh in uu gabadh kale u gacan qaado haddaba waa wax jirta waana reality way dhacday kuna dhacday gabadhii walaal waa la kala tegay oo waa la uu furay gabadhii la oranayay dalqad buu liqsiyay ugbaad aragsan walaalaya waxaa kaloo jirta in uu gabadhan hadda probleenka ku dhacay ninkan ee la hadlaysa hore loogu dilay ninkan oo loogu gacan qaaday gabadhan hore baad u aragteen miidiyaha isagoo indho burburan indha cas loo gacan qaaday yirina 6 askari ba gacmaha imariyay kolka saldhigii ila tageenna iska kay soo daayay oo igu yiri raalle ahaw nin la dilay raalle ma galo laakiin halka lafturkeega nicno iyo waxba ku dhex jira haddaba waxa la isweydiinaya ninkani mayuu baxay oo waa run markii gabadhan la soo hadlayso oo boorama iyo jirjeedu sheegayo ku socda mise waa been waxba kama jiraan waxa jooga calaamadaha waxaa ku sugan yahay calaamadaha inuu iyada dheeraad halaabiyo ama ciidan hadirato ama faamilgeegu waxa soo gaarsiiso lafihiisa ayuu argagaxay waana baqay codkiisa waxa ku jirta ood maqasheen aniga ku soo wici ee ishubso yani dib iskugu noqo malaha waad waxba yarsin noqday haddaba calaamaduhu jooga muu bixin meelna muu tegin laakiin war uu ka naxo baa la soo gudboonaaday haddaba fanaaniinta heesta maxaa ku kalifa badankoodu inay qaar aynaan maqal oo la qariyo iyo qaar kaleba maxaa ku kalifa in ay hawshan oo kale ku dhaqaaqaan se haweenku ama dumarku hablaha yaryar kuwa waaweyn birta fudud iyo birta culusba ay isku dhiibaan waxa kalifaysa oo keenaysa baynu qodob dul istaagi doonaa haddii aad mar labaad iyo mar saddexaad ku cusub tahay channelkan joof iyo johrad subscribe iyo like ta hala dhaafin share tana ku qabo comment diirana dib waxa ku kalifa gabadhan way beeraa loo sanaya heesan macaan
heesaan inaba caadi hayn iyo waxa ay u qaadayaan heeso aanaan arag aynaan maqal oo iyaga agtooda micno weyn ka samaynaya waxay jeclaysanaysaa yarka sidaa u heesaya timaha markuu faraasaa u dhexgeliyo tima hindiilaha inay mar uun nolol la wadaagto waxaygana waxay u bixinaysaa wax kale maaha laakiinse waa si u soo jiidan lahayd una hanan lahayd adduunkan guudkayga waxani waa waxyaabo dhaca wax walbana way dhacaan laakiin inuu yiraahdo oo gabadha codka ka duubaysa uu ku yiraahdo maba dhalo wax isqarinaysa maaha ubaad aragsan maxay u kala tegeen baan isweydiinaya haddaba way ka shakadeen ninkani ayaamihii ugu horreeyeyba ubaxa uu qaadayay ubaxa sanka mari urso shaki waxa kaga soo jiray iyo timahan uu la baxay berigu timahan la soo baxay waxa istiri masaloona xaalad khatarna uu ku sugnaa كنت أبحاول يعني ويكير بودو وحيستر والله مستقبل سيدر لما يرن كرتدي بدأي أدقون دل قدر القضاء كورنا أنتو سينس كسو بدليو كبعدي وحقول قاعدة فركي حقي إن الجبل الميركو كريستان شركنا أوضعه وحنا واحد عدا وواحد ريالتيا وواحد مرق مدونتا لكنسي محل لقى يليا سمحل لقى قبل كرا وحلقة قبل كرا إنسي دق وحاول بريا قبدي سرت نولشنا ولو ذاقو وحا ميريها أصوب قلي عدكي سيو ريالتي أنا وبولا تشيك أما حال كبحيو قبدينا سدق ولو ذوقو هذا كلام وحا دعيسا إنو نقوم تنبنا سوق قادم يسجل السمع الروح يمرور الله يوم مقحمه وفلا حديو هذا قالوا وانا كلا ينعضو دمر سوغاني واحد جرتان اللي سويدين يا طوبي عدك يا طوبي عدتك واحد كرون لتشري بربع لتشري عدتك لكن واحد كنت جرتان مؤرتهي إنا نندلين أمر قد هايستو مكبوصة محسن دقلوكا هايستا متخترك لوكا هايستا محسن بيو قرا ورقد السيي حكو ورقدك كينو ورقد واضح هايستا لكن سمديا كودي بيادروي يا كودي أديكو قبر سوغانا كل كي هربا مقع صوت أفريقيا لقى خيري بعد ودتي يا كودي مدشي اختركي كو خيري وحيان درا فنانين فربضن أدكوان أديكو كتيرتي سان هراكو وشيغي إمسان دالي dadku fanaaniinta caalamku markay fanka soo galayaan xitaa waxay sheegaan wixii maale meel u yaala siyaasigeenu ma yaqaano fannaankeenu ma yaqaano si loogu xisaabtamo kaan dhalin ka ismuday ka dhashu ka qobato siyaasiga lacagta lahaa kaan lacagta lahayn ka meel wax u taalo waxba isku dhex qasan laakiinse muu sheegin markuu fanka soo galayay amar suugaani in uuna dhalin laakiin ما نقرأيسو أنت هبلها وحيل دونا لقو سمايو إن مركا تلفون نايو صوت دران حالة دي بايقو أدق ليرا إنو إرادو بوري بانكو السعوداء على مدهنا وفرديا ميركلين المنتقين وحنكو السعوداء بوري ما وارا ليسكا إيمان دونا ناقا كسو قراعي دونا أرنكاسي وأرنك كيرا وارك الله فلقينيو برتن aad ka daawanaysa ee goor walba nagala socota waa bartan aan ku leenahay YouTube-ka ee Joof iyo Joorad noogu kaalay adduunka